diyaaradaha dagaalka ciidanka cirka iyo kuwa rakaabka oo sida ciidan iyo saanad militari ayaa hadda waxa ay ka degeen magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo. ciidamadan oo la sheegay inay maanta ka duuleen garoonka aadan cadde ee Muqdisho ayaa waxa uu qorshuhu yahay inay xoojiyaan safka ciidamo militari ah oo ku sugan magaalada Beled Xaawo, halkaas oo ay ku loolamayaan dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. dadka ku nool magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ayaa hore waxa ay u muujiyeen taageeradooda dowladda Soomaaliya, waxaana ay soo dhaweeyeen ciidanka xoogga dalka ee la wareegaya guud ahaan Jubbaland. waxa ay sidoo kale ka soo horjeesteen in ciidamada Itoobiya ay soo galaan Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay laba jibaartay qorshaheeda ah inay ka taliso guud ahaan Jubbaland iyo gebi ahaan Soomaaliya. waana sababta ciidamada cirka iyo kuwa dhulka Soomaaliya xilligan loogu daabulayo magaalada Beled Xaawo iyo magaalooyin kale oo ka tirsan Jubbaland.